madaxweynuhu hadda waa fiicanta horena waa kuu sheeg hadda libaaxaad waxbaad diidi kartaa madaxweynuhu bisad ha noqon anaa soo arkay meeshaas shisheeyaan saynaa dadkaaga u yeero doorashadaani keligaa ma qaban kartid doorasho aan lagula lahayn oo aan qayb laga ahayn oo Soomaali u dhamayn oo wada ogol aan ahayn consensus aan ahayn madaxweynuhu ma qaban kartid haddaad isku daydo 2 bilood baa ku harsan waxaa ku sugaya ummadda Soomaaliyeed oo dhiban oo maciishadu irka u martay waxaa ku sugaya dadka la barakiciyay yaa ku sugaya dad badan oo cadow yaa ku sugaya shabaab yaa ku sugaya madaxweynuhu hadda waa fiicanta horena waa kuu sheeg hadda libaaxaad waxbaad diidi kartaa madaxweynuhu bisad ha noqon anaa soo arkay meeshaas ha noqon halkaas aadi halkaas wax fiican ma aha hadda waxbaa haysataa adigu waxbaad dhihi kartaa saana rabaa hadduu wakhtiga kaa dhammaado madaxweynuhu bisad baad noqonaysaa annagana kuuma rabno inaad bisad noqoto golayaasha aqalka sare iyo baarlamaanka safiirada marti sharafta kale gudoomiyaha haweenka Soomaaliyeed bahda saxaafadda kulligiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta ilaahay mahad iska leh oo caawa runtii fursaddan qaaliga ahna siiyey iyadoo ay tahay bil Ramadaan 15kii ugu horreeyay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dambigeena cafiyo dambiga waalidkeena cafiyo ummadda Soomaaliyeed ee dhib ku habsaday inuu ilaahay ka qaado waxaan rabaa oo kale inaan mahad celiyo madaxdii maalmihii la soo dhaafay oo madaxweyne Sheekh Shariif ugu horeeyo oo idin soo booqday oo halka yimid oo runtii xanuunka idinla qaybsaday xaqiiqatan waxaan rabaa inaan raaligelin buuxda ka sameeyo aan idin cudur daaro dhibkii idinku dhacay ee siyaasadeed idinkoo xaqiiqatan arkayay madaxweynaha iyo golaha maxaan ku yiraahdaa baarlamaanka inay ka shaqeynayeen dastuur aan loo dhamayn dastuur aan heshiis uga ahayn inaad xaqiiqatan aad aadeen deegaankiina si aad u muujisaan inaydan qayb uga ahayn dastuurkan halka dhinac really xaqiiqatan ka raran dastuurku waxa weeye waa wax madoo dhan ay wada leedahay oo heshiis bulsho ah waad ka dhiidhiseen taas beddelkeeda waxaad ku hesheen in diyaaraddii idin qaaday ay dib idin soo celiso oo weliba idinkoo markaasi ka degi lahaa Garowe khatar naftiina la geliyey marka anigu runtii waa idin cudur daarayaa raaligelin waa ka bixinaya waxaa laga yaabaa dad inay leeyihiin madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo isaga naftigiisu dee diyaarad madaxweyneyaal ay wadeen yuu ka reeb ama iyadoo diyaaraddii u socota meeshii ahayd beledweyne yaa la soo celiyey waxaa la isku khaldayaa wax technical ah iyo wax siyaasadeed arrintan waa arrin siyaasadeed oo maxaa yeelay idinkoo ka dhiidhiyey dastuurkan halka dhinac ah inaad diidaan darteed yaa laidin soo celiyey halkana laidinku soo celiyey xabsigana hadda aad ku jirtaan taas markaan saxo marka ileen beenta lagu soo celiyo marka dambe run iyay noqotaa waa meesha Soomaalidu tiraahdo been fakata run ma gaarto waxaan rabaa fursaddaas inaan qaato oo aan uga faa'iidaysto in arrintaas aan uga hadlo bacdama runtii la siyaasadeeyey arrintaas madaxweynayaasha 2019 dhammaadkeedii markaas ay dhacday roobab badan iyo biyabax ama fatahaad ee magaalada beledweyne ah madaxweynayaasha iyo dadkii la socday mucaaradka ahaa ay damceen inay booqdaan xaqna u lahayn inay xaqiiqatan ay booqdaan xaq waa u lahaayeen laakiin wixii dhacay oo soo celiyay diyaaraddu ma ahayn arrin siyaasadaysan ma ahayn markaan leeyahay technical markii arrintaas foosh xun ay dhacday oo aan runtii ka tacsiinaya hadda naftigeeda oo aan really xaqiiqatan aan ka xumahay markii arrintaas dhacday yaan waxaan la hadlay maxamed cabdi waare oo ahaa madaxweynihii Hirshabeelle
وأن كوير أرنتان محيط المدحوين إستجن حقيقة وحبك ما أوصل كنت أرنتان وحبك ما أوصل طيب كما أحين ويقول المدحوين وساكي أروتي ما كان مغلي إن المدحوين يعيش بحيان ويتجع المجالات البلدويني يعني وحن وعي أمسون ومركز حيسته إيربورك بلدويني دولة فدرالك ما معموشه إيربورك بلدويني دولة جولات كنا ما معموله ومحمد عبد أواري ما معمول إسرائيل نفتيز وحولها اللي إذا ما دي مركز جوجا ماش تليه هذي أو أحد جبوتيان والأورنجري خياله وكيري وحصاب حذي محن كره هذا مسج تهاية سيف معها محن كره هذا محايلي سيف معها محاي أنت تقول عادي خياله أو أها مدح أمسهم جبوتي ماشي حيسته إيربوركا وجوابي نوتهم كصباحي مسج كصباحي اليو إن كحكومته نوتهم كا وحين شيكتها إيربور هذا سيف كأه يكون سيف كأهين وحوي رواب بدن بدأي إيربور كنا تبيت فلس وحن كان الله سيان وصح وحي ضدك آمنين وعن حقيقة حين أول سياسة ذي خيال وحوي إن إيربور كدر كيسو و كون يسديد بقول متر تضرب بقول متر إن لا يبيع فرستان ما كان ديارها هي ركعة كم دقيقة ديارها وين وعلوش وينه ورنتي كارجوجا أكلية كم دقيقة أو ملتريجا ديارها هي كم دقيقة سأصدرت وإن إلا ظهركي لسوق سبيها يوقف النشاس واري وحوي شيء إنه صوّعي مدحويني حصل الشيخ وكل مدحوينه وحن مغلنا بحسام أرنتها سنة درته إيربورك سيف معها بيا فدية أنا أودي معها ما نحكم إيربورك أرنتها خطرت الليلة هي أوجو حصل الشيخ وحوي جوابي إن هذا الكاسي أما أفكاسي وأفكي فرماجو warka igala har warka iga jooji waa tagaynay hadda ogaada nootam waxa soo saaray UN-ka ciidamadii meesha joogay oo Djibouti-ka ahaa oo xiyaal ugu sareeyeen wuxuu yiri safe ma aha waa wax awooda waare ka baxsan iyo awoodeydaba arrintaas ay u dhacday oo diyaaradda loo soo celiyay kadib markii la kala gareeyay waa ku noqotay